bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada meel kastoo joogtaan barnaamijka farqurxinta. kilibkan gaaban waxaan uga hadli doonaa shuruucda ay leedahay farqurxinta. ugu horeyn waxaan aaminsanahay qof kasta oo daawada fiidiyowgan in wax badan ka bedeli doona fartiisa haddii uu dhammaystirto. shuruucda ay leedahay farqurxinta waxaanu ku salayn doonaa haddii eeba idma 26 xaraf ee ay ka kooban tahay alphabetical of English. 26 xaraf asal ahaan marka la aqrinayo waa laba qaybood oo ah shaqal iyo shibana ama consonant ama vowels, laakiin marka ay noqoto qoraal waxaan u qaybi doonaa 3 qaybood oo kala ah. qaybta koowaad waxaan leenahay waxaa la yiraahdaa qaybta koowaad oo soo qaadana waxaa la yiraahdaa madaxley. madaxley waxaan ula jeednaa xarfaha mar walba kor u baxa ee sadarka kore taga oo ah xarfaha hadda aan soo wadno. waxaa ka mid ah xarfaha madaxleyda ah ee kor aada xarafka b, kor ayuu tagaa. xarafka sidoo kale d, xarafka f, xarafka h, xarafka k, xarafka l, xarafka t. waa 7 xaraf. 7da xaraf waxaa la yidhahdaa madaxley, waxa ayna tagaan sadarka kore waa xarfaha kor u baxa. sharciga xiga ee aan soo qaadanayna waxaan leenahay waxaa la yidhahdaa isagana lugley. lugley waxaanu ka wadnaa iyadana waxay tagtaa mar walba sadarka hoose oo ah sadarkan meesha noogu qoran. waxaan leenahay waxaana ka mid ah xarfaha hoos yimaada xarafka la yiraahda j, xarafka g, xarafka b noocaas ah, q iyo y. waa 5 xaraf waxaan la yiraahdaa lugley. waa xarafka y, b, q, b, g iyo j. madaxleyna waxay ahaayeen 7 haddii lagu daro 5 waxaa soo baxaya 12 xaraf. 12 xaraf ee ka mid ah abc-da waxaa la kala yidhahdaa madaxley iyo ubucley. sidoo kale haddaan idhaahno 26 xaraf marka laga jiro 12 waxaa soo haraya 14 xaraf. 14 xaraf ee soo hartay waxaan leenahay waa sharciga saddexaad, waxaan loo yaqaanaa ubucley. ubucley waxaan ula jeednaa waa xarfaha korna aan tegin hoosna aan tegin ee ku eg labadan sadar ee buluugga ah. waxaa ka mid ah xarafka la yidhaahda c, waxay ku og tahay oo keliya labadaas xaraf. waxaa ka mid sidoo kale xarafka m, n, r, s, v, w, x, z. waxaan ku daraynaa intan shaqaladii oo ah a, e, i, o iyo u. habka qoraalka xarfaha marka laga eego dhanka shuruucdooda waxay u qaybsamayaan sida tan oo ah madaxley oo aan ula jeednaa xarfaha mar walba sadarka kore taga oo ah inta meesha noogu qoran 7 xaraf. sharciga xiga waxaan leenahay waxaa la yidhahdaa lugley, waxaan ula jeednaa xarfaha imaada mar walba sadarka hoose oo ah inta noogu qoran. sharciga ugu dambeeya waxaan leenahay waa 14 xaraf oo la yidhahda ubucley, waxayna mar walba ku egyihiin labadan sadar oo buluugga. waxaan aaminsanahay xaraf walba haddii xaqa uu leeyahay la siiya in qof walba fartiisa ay quruxsan tahay. haddii xaqa xarafka uu leeyahay la duudsiiya ama xuquuq kale uusan lahayn la siiya, taa waxay ka imaan kartaa ama ka dhalan kartaa fildarada xarafka. waad mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan. fiidiyowgan qof kasta uu gaara waxaan ka codsanaya inuu sheer gareeya si markaasi uu u gaaro bulsho badan. mahadsanidin.